السلام عليكم كسو دبادا برتني نور الدين خليفة قرني waxaan falanqeyn kooban ka sameyn doonaa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo lagu wado inuu furmo maalinta biri ah haduu Ilaahay yiraahdo tartanka degmooyinka waa tartan sanadlaha ah oo inta badan la qabto waana tartan kubadda cagta ah inta badan waxa loogu talagalay in lagu soo saaro ciyaartooyda Soomaaliyeed ee da'da yarta ah kuwa oo looga faa'iideysanayo tartanka sanadkan aad u xiiso badan yahay waxyaabo badan ayaa ku cusub degmooyinka gobolka Banaadir tartanka sanadkan waxa ku cusub deegaano oo aan hore tartankan ugu qayb gal jirin waana deegaanada lagu kala magacaabo Garas Baaley Daarusalaam iyo deegaanka Gubadley tartanka waxa ka qayb galayo ama loogu talagalay inay ka qayb galaan 17 degmo laakiin degmada Cabdicasiis ayaa tartanka laga saaray kadib markii ay ganaax ay la kulmeen kulanka furitaanka waxa lagu furi doonaa degmooyinka Warta Nabadda iyo degmada Shangaani oo koobka difaacanaysa haddii aan idin soo gudbiyo isku aadka tartanka groupka A waxa ku wada jira degmooyinka Warta Nabadda Shangaani Garas Baaley deegaanka Garas Baaley iyo deegaanka Gubadley iyo degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir groupka B waxa ku wada jiray degmada Cabdicasiis laakiin degmada Cabdicasiis waa laga saaray groupkan B wuxuu noqonayaa afar kooxood ayuu noqonayaa groupkan B degmada Cabdicasiis oo tartanka laga bixiyay degmada Yaaqshiid degmada Hilwaa iyo Daynile iyo degmada Boondheer ayaa ku wada jira groupka B groupka C waxa ku wada jiro degmooyinka Xamar Jajab degmada Hodan deegaanka Daarusalaam degmada Kaxda iyo degmada Kaaraan groupka ugu dambeeya groupka D waxa ku jiro degmada Dharkeeley degmada Waabari Holwadaag degmada Shibis iyo Wadajir tartankani waxa lagu ciyaari doonaa garoomada kala ah garoonka Stadion Muqdisho iyo garoonka lagu magacaabo Stadio Konis sidoo kale waxa jira kulan lagu ciyaari doono garoonka jaamacadaha adi ahaan degmo ayaa taageeraysa sanadkan degmadaada maxaad u rajeynaysaa inay tartankani meel fiican ka gaarto inay ku guuleysato inay groupka ku harto maxaad u rajeynaysaa waxyaabaha ku cusub sanadkan tartanka degmooyinka aad ay isku adkeeyeen waxaadna arkaysaa in degmooyin dhowr ah ay ciyaartooy ay ka keensadeen gobolada dalka iyo wadamada diriska ah degmada Shibis waxay keensatay ciyaartooy tiro badan oo ay kala imaadeen dhanka iyo Puntland oo waa maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo bandhigeen saxaafadda sidoo kale inta degmooyin ciyaartooy gobolada ka keensada oo ay jiraan Holwadaaga kamid ah degmooyinka dhan degmo walba sida ay isku dhisi karto ay isku dhigtay laakiin degmada Kaaraan sanadkan degmada Kaaraan waxa ay go'aan ku gaareen inay matalaan ama ciyaartooydooda ay u badnaadaan ciyaartooyda degmada ku dhashay ama degmada degan dabcan waxayna sameeyeen arin geesinimo leh waana wax loo baahan yahay in ciyaaryahanka degmadiisa uu jaanis ka helo cunuga dhalinyarada ah ee degmada ku barbaaray ee jecel inay degmadiisa matalo waa inuu fursad helaa waana arin maxaa la dhahaa in laga fiican yahay in degmooyinka kale inta ciyaartooy laga yimaado laakiin mar walba waxa sababayso baahida ciyaartooyda loo qabo ama sida uu tartanka u adag yahay tartanka sanadka ka dambeeyo aad ayuu u adkaanayaa dabcan kulanka furitaankana waxa waaye Warta Nabadda iyo degmada Shangaani ciyaarta aad u xiiso badan tahay hadii aan u soo laabto kulankaas degmada Shangaani waa degmo adag oo sanadkii ugu dambeeyay ku guuleysatay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir degmada Warta Nabadda waa degmo iska meel laxaad ah oo normal ah ani ahaan gamekaas aad u adag yahay maadaama game furitaan uu yahay waqti badan aan la isku heleynin ani ahaan waxaan leeyahay ciyaarta waxay ku soo dhamaan kartaa baraje ku soo dhamaan kartaa sababtoo ah degmada Shangaani hadda ma haysto ciyaartooydii hore ee tartanka kula guuleysay kuwa badan waxay ka naqdeen ciyaartooy seeraa ay naqdeen kuwana qaar wadanka isaga baxeen Warta Nabaddana ciyaartooy normal ay iska haysataa marka ciyaarta baraje aan dhihi karaa ay ku dhamaan kartaa dabcan waxaan rajaynaynaa marka tartanka inuu si nabad ah uu ku bilaawdo isla markaana uu ku soo dhamaado si nabad ah haduu Ilaahay yiraahdo waa salaamantihiin hadii aad fiidiyogan bilaaw ilaa dhamaad aad daawanaysan asxaabtaada la wadaag oo share garay mahadsanid